runtii waxaan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan baahinteena aroornimo taariikhdu waxay ku beegan tahay 16 bisha shanaad ee May sanadka 2026 qodobada aad warkeena ku daawan doontaan hadii Buunuhu idmana waxa ka mid noqon doona dalalka aqbalay inay si toos ah ugu dhawaaqaan aqoonsiga Somaliland ee dhawaan shirka ugu soo gabagaboobay isu tag Imaaraadka Carabta oo qaatay hal mowqif oo si weyn u taageeraya in Somaliland ay dunida ka hesho aqoonsi degdeg ah muxuu yahay go'aankaasi macluumaad dhameystiran ayaan halkan kugu wadaagi doona wax kale oo aan qaybtan ku eegi doona dani waxa uu wajahayaa muujado diidma adag ah oo ay kala hor yimaadeen xubnaha dhinaca iyo waliba taageerada dhaqaalaha badan ku siinayay inuu carqaladeeyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya waana dawladda isu tag Imaaraadka Carabta wararkii ugu dambeysay kala tag Axmed waa kala tag Saciid Dani iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta waxa uu ku qotomayaan halkan idinku soo gudbin doona wax kale oo aan qaybtan ku eegi doona dawladda Ingiriiska ayaa digniin waxa ay ka soo saartay xaaladda Soomaaliya wararkii ugu dambeysay ee qoraalka dawladda Ingiriiska ayaan halkan idinku soo koobi doona soo dhawaad saaxiibayaal dhamaantina muuqaalkan meel fog gaarsiya aragtidiina qaybta faallada ama commentiga ayaad kaga soo dhiiban kartaan hadii markii kugu horeysay oo channelkeena ku soo gaarana waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirto waad ka mid noqoto saaxiibada inagu xiran si aad halkan uga qayb qaadato warar warbixino muuqaalaan had iyo jeer halkan aynu ku soo baahino daawashadooda nagu weheli safarkeena 20,000 oo ay yarnay nooga harsan tahay hadii Buuno uu nafta inagu sima hagaagkan ku bilaabo dalalka aqbalay inay qalinka ku duugaan aqoonsiga Somaliland ee dhawaan shirka ugu soo gabagaboobay magaalada Abu Dhabi caasimada dalka isu tag Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijinaya inay qaateen hal go'aan oo si weyn u taageeraya aqoonsiga Somaliland dalalkan oo la sheegay inay ka kooban yihiin ilaa 7 dal waxa ay si wada jir ah ay u qaateen go'aano waaweyn oo kala horaan halkan idinku soo baahin hasaatee waxa iminkan war soo dhacay uu sheegaya in ay qaateen hal mowqif oo ku wajahan aqoonsiga Somaliland iyo in xuska 18 May si mideysan dalalkooda looga xuso si weynna calaamada Somaliland loogu ruuxo wadooyinka waaweyn ee dalalkaasi iyo sidoo kale in lagu dhajiyo goobaha ay bulshada sida weyn isugu yimaadaan waxa kale oo lagu ballamay in calanka Somaliland ay ka looshaan dhammaan madaxtooyinka dawladahan aqbalay aqoonsiga Somaliland tani ayaana ka dhignaan doonta in warbaahinta dalalkaasi ay maalinka xuska 18 May ee toddobaadkan ay soo tabin doonaan waxaana qorshahan la sheegay inay qayb ka tahay muujinta garab istaaga Somaliland oo ay toos u muujinayaan dalalkan dhammaantoodana way meel mariyeen oo way aqbaleen arintan loo gudbiyay oo waxa la filayaa in xuska 18 May ee kolore laga xusi jiray deegaanada Somaliland imikan ay gilgili doonto dunida oo dalalka caalamka qaarkood ee aqbalay aqoonsiga Somaliland ay si weyn u xusi doonaan madax ka tirsan dalalkaasi ayaana qorshe u yahay ka qaybgalka munaasabadahan tani ayaana ka dhigan taageeradii xooganeed ee lixaad kala ahayd ee soo tareysay Somaliland ay ka helaysay dhinaca dunida macluumaadyo diblomaasiyadeed ayaa sidoo kale warinaya in dalalkan ay ka gaashaanteen cadaadis diblomaasiyadeed oo ay kala kulmaan saaxiibada Soomaaliya iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya waxayna sheegeen in ay si toos ah arintan u dhaqan gelin doonaan soo baxay ayaana suurtagal ah in dalalkan lagu qabto oo lagu muujinayo xuska 18 May waxaana dalalkan ay sidoo kale soo bandhigi doonaan muhiimadda ay u doorteen inay aqoonsi siiyaan Somaliland iyo sababta xilligan soo dadejisay taageerada lixaad kale ee ay u muujinayaan kana duwan taageerayaasha waa taageerada kol hore ay Somaliland ballan ahaan ay uga heli jirtay dunida Cabdiraxmaan Cabdilaahi Cirro madaxweynaha Somaliland ayaa guulo diblomaasiyadeed oo waaweyn oo loo riyaaqay waxa uu ka soo hooyay dhinaca dibadda marka la eegana mudooyinkii ugu dambeeyay dadaalkiisii diblomaasiyadeed ee ku qotomay helidda ictiraafka caalamiga ah ee Somaliland aad u kordhiyay iskastaba haatee madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro ayaa dhawaan waxa uu la hadli doonaa shacbiga Somaliland isagoo oo shaacin doona warar farxad leh oo waaweyn oo uu sheegay in marka ay soo baxaan fulinta ballanqaadyo uu ka helay dhowr dal oo dhawaan ku dhawaaqi doona aqoonsiga Somaliland in uu bidhaamin doono xitaa waa laga sii duubay khudbadii hambaliyada ahayd ee Cirro uu arintan kaga hadlay dhabaha aqoonsiga Somaliland waxa daafurtay dawladda isu tag Imaaraadka Carabta oo dhaqaale badan ku bixisay isla markaana ku qancisay saaxiibadeeda si gaar ah Israel ayay uga gaday aragtidan
waxaana 26 bishii December sanadkii hore ee 2025 ay Israel ku dhawaaqday aqoonsiga Somaliland. Imaaraadka ayaana wuxuu wajahay cadaadis xooggan dhinaca dawladda federaalka kaga yimid iyadoo ay keentay in meesha uu ka baxdo amaba ay ka baxdo guud ahaan xiriirkii tooska ahaa ee u dhaxeeyay dawladda dhexe ee Soomaaliya istaga Imaaraadka Carabta sabab la xiriira in dawladdu ay tuhun weyn ka qaaday inay Imaaraadka fududeysay arrimahaasi. Iminkanse Imaaraadka si aan caadi ahayn ayay la soo banaan baxday aragtideeda ku qotanta taageerada lixaad kale ee ay siinayso Somaliland oo ay dhaqaale fara badan iminkan ku bixinayso sidoo kalena ku cadaadinayso dalalka ay taageerada lixaad kale ay Imaaraadku siiyaan. waxaana Imaaraadku ay sheegtay inay ka go'an tahay inay Somaliland gaarsiiso inay ku biiriso golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo ururada caalamiga ah ee ay qaybta ka tahay. markan hadii aynu eegnana khilaaf xooggan ayaa soo kala dhaxgalay Saciid Cabdilaahi Deni madaxweynaha maamulka Puntland iyo sidoo kale dawladda Sultanka Imaaraadka Carabta warar soo baxay ayaa sheegaya in Deni oo Imaaraadku tuhunsan tahay inuu ku fashilmay hirgelinta dhaqaale badan oo Imaaraadka ku bixiyeen kol hore in la carqaladeeyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya isu soo bax dadweyne oo waaweyn oo caasimada la qorsheeyay dhaqaalana ay ku bixisay Imaaraadka ay guud ahaan fashilmeen. fashilka banaanbaxyada iyo aragtidii Imaaraadka ay soo jeediyeen oo hirgel noqon waayay ayaa keentay in Imaaraadku ay iminkan tuhunno waaweyn ay ka qaadaan. waxaana muuqanaysa in Deni iyo Imaaraadka Carabta iminkan ay kala furteen oo ay laba wada kala qaadeen. tani waxay muhiimad iyo sidoo kale guul udub dhaxad ay u tahay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya oo walaac xooggan ka qabtay dhaqaalaha fara badan ee Imaaraadka Carabta uu iminkan ku bixinayo siyaasadda Soomaaliya. waxaana Saciid Cabdilaahi Deni imaanshihiisii Muqdisho wehelisay inuu aad u karkariyo xalka siyaasadeed ee Soomaaliya sidoo kalena Imaaraadka Carabta ayaa iminkan sheegtay inaysan muuqan wado ay ku sii taageeri karaan Denina lacag aysan ugu dhiibi karaan xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka oo la rumaysan yahay in iminkan ay wajahayaan fashil weyn dhowr jeer hore banaanbaxay ay ku baaqeen dawladuna ay shaacisay in maalgelintiisa ay leeyihiin xubno dawlada shisheeye ah ay ku fashilmeen guud ahaan. tanise waxay keentay in Imaaraadka Carabta xilligan uu soo dedejiyo go'aankan adagna uu ka qaato xiriirkiisii tooska ahaa ee kala dhaxaysay Cabdilaahi Deni oo ahaa dhunta ay u soo marto dhaqaalaha Imaaraadka Carabta kaga imaanaya xubnaha dhinaca siyaasiyiinta mucaaradka. markan hadii aynu eegnana dawladda Ingiriiska ayaa digniin ka soo saartay xaaladda Soomaaliya. dawladda Ingiriiska ayaa mar kale waxa cusboonaysiisay digniinta safarka ah ee Soomaaliya iyadoo muwaadiniinteeda uga digtay inay u safraan qeybo badan oo kamid ah dalka sababo la xiriira sida ay sheegtay xaalad amni oo wali ka taagan qeybo kamid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa waxaa lagu sheegay in dawladdaasi ay mamnuucday dhammaan safarada aan daruuriga ahayn ee lagu tagayo Soomaaliya gaar ahaan gobolada koonfurta iyo qaar kamid ah dhinaca waqooyiga Soomaaliya. digniintan ayaa si gaar ah u xustay gobolada Togdheer, Sanaag, Sool kuwaas oo lagu tilmaamay deegaano ay ka jiraan khatar amni oo colaad ah iyo weeraro ay fulinayaan kooxaha argagixisada gaar ahaan Al-Shabaab ayay ku sheegtay. sidoo kale warbixinta ayaa lagu sheegay in dagaalka u dhaxeeya ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Al-Shabaab ay sii xoogeysteen bilihii la soo dhaafay gaar ahaan deegaanada ku dhow magaalada Muqdisho iyo gobolada kale ee koonfurta dalka Soomaaliya. wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa sheegtay in khatarta weerarada argagixisada ay weli marayso isla markaana ay suurtagal tahay in bartilmaameed laga dhigto goobaha ay isugu yimaadaan dadka rayidka ah, xarumaha dawladda iyo goobaha ganacsiga ah oo si toos ah ay u beegsan karaan kooxaha Al-Shabaab ee al-qaacidada ka tirsan iyo sidoo kale kooxda Daesh ee ka dagaalanta buuraleyda dhinaca gobolada maamulka Puntland. dawladda federaalka ah ee Soomaaliya wali warka rasmi ah kama soo saarin digniintan amni oo ay sheegtay Ingiriiska in Soomaaliya ay wajahayso. guud ahaan saaxiibayaal daawadayaal warkii aad ka daawanayseen warsan news ee aroornimo ay naga taawad ku maasantiin daawashada warkan midkiisa xiga intaynu dib u kulmi doono nabadina qaaray.